السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة الجنة كان منير مرسي كحران صاحبي هال صور هذا ولكنه مسكين كي الله حبابي ما أنتوا حروا هنا كهذلو إن دعوينك الآخر السقف كمركو حنون صدق دعوينك سان ربا مركو هره وحنا قعد سنة هنا الجنة كان لايك سرتا أو الصور دويسان مقال كان إن شاء الله وحنا ربا إن هرت مركو هره هدي أن كهذلو قفك إنه حنون صدق يعني قفك إنه حنون صدق وحسك عادية qof kasta uu xanuunsanaa qof walba uu jirina yani waa lagu kala badan yahay laakiin qofka inuu yani mar qandho iyo wax madax xanuun iyo waxyaabo noocaas ah mar ay ku dhacaan oo wax iska caadi ah dadka badanaana xanuunka wax oo yani aan laga maarmin waa nolosha ka mid tahay oo waliba qofku intuu caafimaad qaba la dhahaa ha ka faa'iideysto ha shaqeysto ha cibaadeysto wax ha barto Allah intuu caafimaad ka qabo qofka ilaahay caafimaadkiisa u dheereeyo oo mar walba caafimaadkiisa taam iska yahay alxamdulillah laakiin qofka markuu xanuunsado maxaa la gudboon horta dambi dhaaf ay u noqonaysaa qofka xanuunka qofka mu'minka yani sheedaana xanuunsanin laakiin qofka markuu xanuunsado waxa laga rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala xasuusto oo mar walba yani ducadii iyo ducooyinkii nabiga calayhi salaam uu badiyo ama inuu isquraan saaro ama inuu asaga quraanka aan akhriyo oo u niyeysto biniyati shifa iyo inuu yani macallimiin iyo u wacdo mashaayikh oo quraanka saarta si uu caafimaad u helo laakiin waxaan rabaa in maanta inaan ka hadlo qofka muslimka mu'minka inuu asaga yaqaan ducooyinka marka xanuunsato ilaahay xasuuso ilaahay ducooyinkii nabi maxamed calayhi salaam iyo quraankii isku akhri oo haniyad jabin ha isdhiganin yani ilaa aad muddo ka sii xanuunsanaato ha isgaarsiinin oo waxa samaysaa ducooyin akhriso quraan akhriso quraanka hadii akhrin karin xataa dhageyso qof kugu akhri raadi marka maanta waxaan rabaa insha Allah muuqaalka inaan kaga hadlo ducooyinka ugu muhiimsan ama waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka markuu xanuunsado lagu tufaayo ama asaga isku tufaayo ama asaga uu akhrisanayo marka hore waxaan ka bilaabi doonaa muuqaalka ma sii dheereen doono insha Allah waxaan rajeynayaa inaan muuqaalkan asxaabta u shirgareysaan ducooyinkiina bartaan muhiim waay qofka muslimka mu'minka ducooyinka inuu barto waay ducadana qayb muhiim ah ay cibaadada kaga jirtaa oo qofka markuu xanuunsan yahay inuu ilaahay iska baryo ilaahay wax weydiisto yani ud'uuni astajib lakum asaga dhahay marka qofka inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryo ilaahayna waa ajiiba waa samiic waa basiir waa ku maqlaa oo inaan taas diirada saarno waa muhiim ilaa mar walba anaga iska dambaawna waa iska qaladaada naga dhaco bini aadan nahay laakiin markuu qalad naga dhaco oo xanuunsano oo dambi dhaaf noo tahay haddana ducooyinka inaan badino oo ilaahay yani aan weydiisano caafimaad inaan ilaahay weydiisano dambi dhaaf inuu nooga dhigo taas waa muhiim wala qofku markuu xanuunsado ku fiican tahay in la booqdo quraan la saaro oo la daryeelo haddana adigana inaadan qusanina la rabaa maxaa yeelay ducooyinka badanaa carabka laga akhriyaa carabkana inta badan oo iska furan yahay yani carabka lagama xanuunsado hadduusan nabro carabkaaga soo bixin ama kansar ilaahay nooma kasee yani in carabka aad ka xusto ilaahay subxaana wa tacaala aad ducada badiso ducada xuska ilaahay waaye cibaadooyinka tan ugu muhiimsan ay ku jirtaa ducada ugu horeyso qofka markuu xanuunsado haddii aad xanuunsan tahay ama aragto qof xanuunsan ducooyinkan ku akhri ama isku akhri adiga كو waxaa leedahay bismillah saddex mar dhe bismillah hatta hadii wax kale aan awoodin bismillah boqol jeer kun jeer milyan jeer ku celiso yani ducay ku noqonaysa biniyati shifaada oo akhrisanaysan ilaahay waa kugu caafin doona insha Allah ilaahayna ku kalsoonaataa la rabaa oo ducadana khaalis ah ka dhigto ilaahay u saafiyesho okay marka bismillah saddex mar dhaado in ka badan a'uudu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ayad leedahay toddoba jeer in ka badan mar walba badsan kartaa waa dhikri ilaahay اوكي دعاءنا كو دعيسنيسا دعوينك ugu muhiimsana waxa leedahay Allahumma rabbin nas idhhab bil ba's ishfini anta shafi hadii aad akhrisanayso hadii aad qofku akhrisanayso ishfihi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama ducaasa ku akhrisanaysa ducooyinka ugu muhiimsan oo wajibsanay ku jirtaa ducada saddexaad bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa' وهو السميع العليم أي آخر سنة ساوي لي بعد دعاء وحيكون جرت دعين كورونا حتى لو أخرسته وإلهي قفوا كعاف ما ذا يعني قفوا حجري ويرب جو يصوبعي لو قفوا هاي يعني دعاء أنا وشيء دعاء كلا جرت لك دعاء أنا ده وين يقانين وأفضل ذات ويكون العليين يعني شنبري كذب إلى أسبوع عادي كذب ويككعن مركز دعاء ده وحن ده مركز آخر سنة يزين إلهي قلبي كوهايا إلهي عبسدي صدرهما إنه إلهي إذا عافنا هاي أكسون هذا مركز دعاء ده مركز آخر سنة لبضع صفوت waliba qofka yani hore degdeg jawaab iga soo celi yani qandadii iyo wixii hindisadii wixii dhan waa ka kacay ducadana aan ku xiji Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari ayadana akhrista ama qofka ku akhriya waliba Allahumma aafini qofka asaga iska hadlay
marka ducadaasna waa ducada afaratan shanaad suuratul faatixa. suuratul faatixa cajiib waa axbaabi, qofka markuu xanuunsado waa laabudda inuu akhristo suuratul faatixa 10 jeer 20 jeer 100 jeer ugu yaraan 7 jeer inaad ka akhrisato ayaa fiican. oo ducada faatixa yani waa ku caafimaadaysaa insha allah. mar walbana biniyati shafaa inaad akhrisato waa muhiim, niyadda aad wanaajiso ilaahayna ku kalsoonaato. okay adkaaraadka kale saddexda suuradood ee ugu dambeeya quraanka, qul a'uudhu qul huwallahu ahad, qul a'uudhu birabbil falaq, qul a'uudhu birabbin nas, ayagana akhriso waliba ugu yaraan 3 jeer ka akhriso insha allah waa ku caafimaadaysaa. ducada shanaad aayatul kursi, quraan waaye kuwaan ducan way noqonayaan. aayatul kursi akhriso waa aayadan waaye insha allah waadin akhrina. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا الدعاء هذا داس أخرستا marka xanuunsataan ama ku aqriyo qofka xanuunsan. waxaan kusoo gabagabeynayaa laba aayadood. labada aayad waxay noqonayaan aaman rasuul waa aayadaha ugu dambeeya suuratul baqara. ayadana haddii akhrisataan insha allah waa ku caafimaadi doontaan, ama qofkii lagu aqriyo ku caafimaadi doonaa. waxa waaye aamana rasuul bima unzila ilayhi ilaa yukallifu llahu, ay ka faa'iidaysta akhriya insha allah. intaas haddii akhrisana waa caafimaadi doontaa insha allah, waa lagu caafimaadi doonaa. waana muhiim qofka muslimka ah inuu jadwalkiisa ku daro ducooyinka, inaa ilaahay mar walba barido. maanta ma jiro qof caafimaadkiisa taam yahay, maanta ma jiro qof mar walba iska caafimaad qabo. macnaha qofka waa mar waa xanuunsana, mar waa caajisa, markii aad intaas dareento oo caajis iyo xanuun iyo waxa aad dareento, ducooyinka aan hadda kuu soo sheegay isku wada xiji, kasoo bilaab ducadii bismillaah ilaa suuratul baqara dhamaadkeeda akhri. waa ducooyin fudud, ugu yaraan 5 ilaa 10 daqiiqo ayaad ku akhrin kartaa, laakiin waa ku caafimaadi doontaa adoo weliba kalsooni ku akhrinayo, ilaahay ku kalsoon oo ogaanayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku maqlaayo, ku ajiibi doono, kuna jeedo. yani ilaahay subxaanahu wa tacaala makuu awoodi waayey inuu ku caafiyo, laakiin waa lagu imtixaanaa, dambi dhaafay ku tahay, sabarka ayaa la fiirinaa. marka haddii aa ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada kula cararto ood ilaahay xasuusato, ilaahay barido, insha allah waa caafimaadaysaa. laakiin haddii aad isdhigato dhibkeeday leedahay. haddii laakiin aad daran tahay, qof kugu tufo ama adi isku tufo haddii aad akhrin karto, maxaa yeelay dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba waa badbaado. cibaadada wuxuu ka mid yahay dikriga ilaahay. marka insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala hana caafiyo, inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala inta xanuunsan oo sariirta ku dheera xanuunka la dheeraadeen ilaahay ha ka kiciyo, dambi dhaafna ha ugu dhigo insha allah. waalidkeena iyo dhammaan yani muslimiintana caafimaad iyo dambi dhaafna ilaahay u weydiinaynaa, oo anagana aan ku jirno. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. halkan aan kusoo gabagabeynaya muuqaalka. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا صلوا صلوا